بسم الله الرحمن الرحيم daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka martisoor toddobaadkan barnaamijka waxaa marti noogu ah Sheekh Cabdiqani Ali Faarax oo kamid ah culimada Puntland sidoo kalena muddo dheer macallin ka ahaa goobaha waxbarashada ee Puntland waxaan toddobaadkan barnaamijka diiradda ku soo hori doonaa khibradda muddadaas fog ee Sheekh Cabdiqani uu leeyahay waxbarashada sidoo kale wuxuu muddo dheer ahaa khadiib ka khudbeeya maalinta Jimcada masaajidka saxaaba ee Garowe waxaanu ka hadlaynaa sidoo kale arrinta la xiriirta manhajka waxbarashada ee dugsiyada sare ee Puntland oo markii u horeysay la daabacay Sheekh Cabdiqani ku soo dhawow barnaamijka martisoor marka hore si kooban waa kuma Sheekh Cabdiqani Ali Faarax iyo taariikhda ugu horeyn anigu waxaan ku dhashay magaalada la yiraahdo Hobyo oo degmo ka tirsan gobolka Mudug sanadku markuu ahaa 1965 waxbarashadayda kama bilaabin degmada Hobyo sanadku markuu 6 sano markaan jiray oo dugsiga quraanka la galiyay oo dugsiga quraanka galay ayaa reerku waxay u wareegeen isla degmo kale oo ku dhow isla gobolka ka tirsan oo degmada Xardheere ayaan waxbarashada dugsiga dhexe ka bilaabay xilligaas aan waxbarashada bilaabay dugsiga dhexe waxay ahayd 1975 sano anigoo 10 sano jira waxaa la ogolaaday oo waalidku iga dalbadeen marka hore inaan waxbarashada nidaamiga aan gelin ilaa aan quraanka dhameeyo markaan quraanka dhameeyay naqtiinkiisa iyo ku celiskiisa aan dhameeyay oo la arkay inaan quraanka si fiican u xifdisanahay markaas ka baxdi ayaan iskuulka nidaamiga ahaa aan galay sanadku markuu ahaa 1975 ayaan fasalka koowaad ee la oran jiray Birmada ayaan u fariistay anoo 10 sano jira dugsiga dhexe isla dugsiga dhexe waxaan kaga baxay degmada Xardheere 1983 markaan dugsiga dhexe ka baxay toos hore uma aan gelin dugsi sare waxaan galay dugsiga caafimaadka oo xamar ku yaala oo la yiraahdo maarta Health Training Nursing Institute caafimaadka gaar ahaan waxaan galay qaybta sanitationka ama fayadhowrka la yiraahdo 2 sano ayaan ku soo qaadanay oo aan kaga baxnay markaan 2 sano noo dhamaatay ka baxdi ayaan waxaan u galay imtixaan hadana form 3 iyo form 4 si aan u gudbo dugsi sare imtixaan la qaadayo oo ardayda aqoon-dirsadka loo qaado ayaan halka ka galay markaan imtixaanka galo imtixaankina aan ku gudbo darajo fiican aan ku keenay ayaan hadana form 3 iyo form 4 kii waxaan ka bilaabay iskuulka ku yaala magaalada Gaalkacyo ee Umar Sawatar asaga ayaan kaga baxay dugsiga sare sanadku markuu 1987 waxaan qaatay shahaadada darajada ee balas baan ku guuleystay markii inta wixii ka dambeeyay wataan ilaa caafimaadka soo bartay anaan wali jaamacad galin ayaan shaqo waxaan ka bilaabay inaan shaqeeyo xamar 1988 intii dawladda siyaad baray ee saddex koor 2 sano ayaa xamar shaqo ka bilaabay gaar ahaan waxaan bilaabay inaan farmasi aan iibiyo muddo 2 sano ku dhawaada ayaan farmasi agaday oo markii dambana anigu markii hore iibiyo ayaan ka ahaa markii dambana mas'uulka farmasiga iyo dadka shaqaalaha jooga iyo hawshiisa mas'uulka ah baan noqday ana hawsha ku jira ayaa waxa bilaabatay dagaaladii maarta wadanka burburka keenay iyo jabhadii hubaysnaa inay wadanka soo galeen ka bacdina ay dhacdo dawladii marka xukunka haysay markii xilligaas arinta dhacday ana wali jaamacadiina gelin ayaa waxa kala dhacay inqadac daraasana oo nagu dhacay waa la kala qaxay qof meel buu cararay anigu 1992 ayaan deegaanadan sanadka 91 wuxuu iga dhamaaday xamar muddo aan joogay iyo muddo aan Kismaayo joogay intaba 92 ayaan deegaanadan soo galay ka bacdi hadana muddo shaqadii aan hore u aqaanay markaas wadanku iska burbur buu ahaa wax walba waa burbursanay iskuulo iyo nidaam ma jirin waa 1992 1993 ayaa hadana waxaan ka bilaabay magaalada Boosaaso farmasi ku yaala oo farmasiga Luqmaan la oran jiray inaan ka noqdo iibiyaha ninka iibiya nin baa iska odaya oo professor farmasigaas ay iibin jiray muddo adu 1 sano iyo bar ayaan gaday farmasiga ka bacdina ganacsiga ayaa soo wareeyay dhinaca ganacsiga
wax kasta ha noqotee waxbarashadayda jaamacaddu ilaa waxay iga xanibneyd oo aan dalabka u dhiibtay ilaa 1998 ayay iga xanibneyd 1998 gabagabadeedii ayaa qabuulkii jaamacadda bariga jaamacadda Umm al-Qura ee ku taala magaalada Makka al-Mukarrama qabuulkii iyo dalabka aan u gudbistay qabuulkeeda markaas u yimid gabagabadii sanadka gabagabadiisii bishii 10aad meelahaas ayaan ka tagay oo ka dhoofay magaalada Boosaaso anoo sii maraya Djibouti oo aan ka qaadan lahaa fiisi aan ka qaadan lahaa sababta wadanku burbur buu ahaa safaarad iyo meel fiisi lagu soo dhiibay ma jirin Djibouti waxaan joogay muddo 2 bilood ah oo iyadana aan shahaadada ku sugay aan fiisaha ku sugay markay aan fiisi helayna waa baxay labada bilood waxay iga dhamaadeen Djibouti sanadkii 1999 bilowgeedii markuu bilowmay ayaan waxaan galay Sacuudiga markaan Sacuudiga galay muddo 2 sano ku dhawaada 1 sano iyo bar hore waxaan ka qaaday imtixaan ardayda hore loogama qaadin ilaa luqada carabiga ardaygu ma soo baran arday Soomaaliya oo macad ka soo barato imtixaan baan ka qaaday waxaan la geeyay macad luqada carabiga oo ardayga lagu dhiso luqada carabiga marka anigu markaan ardayga macadkaas waa 3 sano ardayga bilowga ah sanadka mustawaha koowaad buu ka bilaabaya anigu marka waxaan ka bilaabay mustawaha shanaad oo 1 sano aan ku dhiganayo أنا سمستر كشنات إيه سمستر كالحاد أيام كل قطي كبعدنا واحد وجود بالجامعة وحن كبرتي قيبتها اللغة العربية أيام وحن كبرتي جامعة داس كنت على مقالة مكة بجرو أركان أيام قوات كن سجال لبدي كن يشنتي أيام كسر تخرجي جامعة أم القرى وهالشهادة بجرو أركان قاتي درجة امتيازك waliba balaaska loo yaqaan ama marka carabiga laga hadlayo la yiraahdo mumtaaz alif oo u dhiganta 3.77 ayaan ku baasay imtiyaaska ama balaaskuna wuxuu ka bilaabanayaa 3.75 sababtoo guud ahaan imtixaanka 8 semester wuxuu isugu imaanayaa 4 buu isugu imaanayaa 4 dhibcood buu isugu imaanayaa marka intaas aan ku helay darajo aad u wanaagsan oo aad loo amaanay ahayd hase yeeshee anagoo jeclaa inaan halkaa magisterkii iyo doctorada ka sii wado ayaa waxa dhacday xilligaas dadka ajaanibta ee wadanka aan u dhalan ayaa dawladda Sacuudiga waxaa kacdoon ku kicisay waxa la qof walba meesha uu ku jiro waxbarashada bachelor qof ku jira markuu bachelor dhameeyo waa inuu baxa oo khurujinaayo qaata kii magister ku jira magister markuu dhameeyo waa inuu khurujinaayo qaata saas markay dhacday anu markii aan bachelorkayga dhameeyay wadanku ma warwareegin inaan sharci daro wadan ku joogo ilaa wadanka markaan joognay waxaan ahayd dad iqaamo dawli ah haysta oo nidaam sharci ku jooga ayaan ahayn oo dawladdu ay ka fiilka tahay mas'uuliyadooda leh sanad walba tigid ay ku soo baxaan oo wadan ku yimaadaan leh haysta xataa lagu siiyo xogaa yar oo pocket money ah jaamacadda ay dhiganayaan lagu siiyo ayaan ahayn marka kuma raali noqonaynin inaan maaragtay markii aan dhameeyay ka bacdo oo sharcigeena naga dhamaaday inaan si dhuumasho aan ku joogo waxaan go'aan ku gaaray isla markiiba inaan isaga soo baxo halkan wadanka imaado markaan wadanka halkaan imid wax yar ka bacdi 4 bilood 3 bilood ka bacdi markaan wadanka joogay ayaan waxaan imtixaan ka galay iskuulka Alwaaxa dugsiga sare Alwaaxa markaas ayaa imtixaankiina ku guuleystay ayaa waxa laga qaatay inaan macallin ka noqdo dugsiga sare oo Alwaaxa markii hore waxaa lagu qoray hal fasal oo aid ah iyo dhowr fasal oo kale ilaa bilow baan ahaa waa markii igu horeysay macallimada inkastoo hadda aan markaas aan nin weyn ahaa jaamacadina aan soo dhigtay horay wax tadriis uma galin macallimada igu horeysay ahayd sida daraadeed fasallo form 1 iyo form 2 ah iyo fasal aid ah ayaa markii u horeysay sanadkii horeeyay aan dhigay sanadkii labaadna qoladii aidka ahayd oo dugsiga dhexe waa laga dhaafay waxaan isugu wareegay dugsiga sare intii ka dambeysay maadooyinka luqada carabiga ayaa waxaan ka dhigay iskuulka sare ee Alwaaxa muddo 16 sano ayaan joogay sanadkan ayaa markii igu horeysay waxay noqotay inaan maartay maadaama aan khabiir ku noqday muddo badan ku soo shaqeynay luqada carabiga inaan iskiilaadka qaar ka mid ah ay iga dalbadeen inaan maartay la wadaago aan maartay khibradeeda iyo waxbarashadeeda iyo aqoonteeda aan wax ka siiyo sidaa daraadeed waxaan iri form 4ka oo labada iskuul Alwaaxa
iyo alxigmo ah ayaa hadda kusoo koobsaday oo waxaan dhigay ardada foonfoorada ah maarata labada iskuul keliya ayaan u dhigaa hadda halkaas hadda waxbarashada ii maraysaa dhinaca waxbarashada markaan bachelorka halkaa ka qaatay muddo ka bacdi wadanka waa ogtahay oo ma aysan jirin meel scholarship lagu sii wato waxbarashada sare sida loo helaa waa adkayd qofku inuu dibadda aado oo safar u baxo maaragtay maahne si kale waa ku adkayd sidaa daraaddeed muddo dheer baanan bachelorkii aan waxba ku darin dhowr sano ka hor bay ii suurto gashay inaan jaamacaddan la yidhaahdo aljaamica islaamiya minnesota oo farac garow markaa ka samaysatay kabacdina xarunteeda weyn oo muqdisho ah ayaan maarata waxaan ka bilaabay magisterkii waxaan ka bilaabay kuliyatu tarbiya kuliyat culuum tarbiya qismu idaara tarbawiya kuliyadaas culuum tarbiya laba qaybood bay lahayd qayb oo qismul manaahij ah iyo qayb al-idaara tarbawiya layahay anigu waxaan qaatay marka qaybta idaara tarbawiya ayaa waxaan ku qaatay magisterkaygii 3 semester oo maarata daraasa oo saddex darajaba aan imtiyaas ku baasay isu geyna markii la isu geeyo 3 semester waxaan ku baasay mucadal noqonaya 95.6 oo ah darajo imtiyaas oo aad u sareysa baxtigiina sidaas oo kale waxa la igu siiyay imtiyaas baa la igu siiyay darajatul imtiyaas marka shahaadada magisterka jaamacadaas ka qaatay ka bacdina waxaan ka dalbaday inaan bedelo takhasuskaygii maadaama takhasuskaygii hore uu ahaa tarbiya kii hore bachelorkuna uu ahaa luqa carabiya inaan doctorada ka dhigo luqa carabiya ayaan jeclaystay dalabka waa u gudbistay jaamacadda waana iigu maqan yahay hadda weli dalabka iima imaan waxaan rabaa sheekh inaan ku weydiiyo 16 sano ka hor markaad dalka kusoo laabatay adigoo shahaadada heerka koowaad ee jaamacadda sacuudi carabiya kusoo sameeyey sida ognahay sacuudi carabiya waa wadan khaliij ah oo waxbarashadoodana waxay ku bixiyaan miisaaniyad xoog leh sidee ahaa muuqaalka waxbarashada dalku marka dalka kusoo laabatay waqtigaas aan nimid oo 2005 ilaa 2006 semesterka aan ku bilaabay ugu horeeyay wuxuu ahaa sanadka 2005-2006 xaqiiqatan marka la fiirsho Puntland way dhisneed markaas horumar badan way samaysay xilligaas waxay ahayd xilli ay ardadu u badnaayeen dad waaweyn oo waxbarashada ayagu daneynaya oo aan maartay waalidabada ka riixaynin laakiin doonaya ayagu inay maartay aad wax u bartaan ayaa horta ardadu u badnaayeen waxaana ka muuqatay tayada waxbarashadu ha jireen manaahijtu inay kala duwanaayeen oo manaahij kala duwan iskuulaadku ay dhiganayeen qayb carabi ah hataa carabta lafteeda kala duwanta qaar Yaman ka imaanaya qaar Masar ka imaanaya qaar Sacuudi ka imaanaya qaarba ay manaahij kala duwan ay isticmaalayeen dhibka noocaas ha jiro oo inay manaahijtu ardadu kala duwan ay qaadanayeen hase yeeshee xagga raqabada iyo dalabka iyo doonitaanka ardadu ay waxbarashada doonayeen waxa mid aad u sareeyo ardaduna waxay u badnaayeen arday dadaalaysa oo waxbarashada aad ugu dadaalaysa qof walba tabartu meesha dhigta si kasta ha noqotee laakiin aad iyo aad dadaal xoog badan ayaa xilliga dadka waxbarashada ka muuqanay himad baa loo hayay waxyaabo badan hadda mashquulinaya maantana xilliga ma aysan jirin marka xilligaas waxa ahayd xilli ay dadku wax baranayaana u badnaayeen dad waaweyn oo garaadkooda aad u sareeyo haddana waxbarashada ayagu daneynaya xilli saas ah mahadsantahay sheekh Cabdiqani muddadaas dheer ayaad macallin ka ahayd iskuulada Puntland maxaa ku qiimeyn kartaa tayada waxbarashada ee gaar ahaan xagga luqadaha waliba adigu macallin maadooyinka carabiga dhiga ahayd dabcan waxa lagu dhaliilaa iskuulada Puntland waxa la yiraahdaa ardayga carabiga wax ku bartana hadduu khaliijka tago carabi la yaqaano meesha kuma hayo kuwa ingiriiska wax ku barta oo iskuulada manaahijtooda ee ingiriiska xoogga saaraan waxa la yiraahdaa ma fiicna ingiriiskooda mushkiladdu xagee ka jirtaa bay kula tahay waalid iyo ustaad muddadaas dheer ka shaqeynaya baatay maxay kula tahay dooda noocaas waa runta mushkilad ka taagan xagga luqadaha way jirtaa haddii marka anigu aan ka hadlo luqada carabiga maadaama aan macallin luqa carabiya ahay intii aan arkayay mushkiladda noocaasa haba sii kala daraatee oo waqtiyadan dambe culeyskeeda sii siyaadee mushkilada ah ardaygu inuusan maaragtay si fiican wax u tacbiirin karin oo uusan muujin karin waxa maaragtay damiirkiisa iyo qalbigiisa ku jira inuu muujiyo ama qoraal ha ku muujiyo ama hadal uu hadlayo ha ku muujiye waa wax aad iyo aad loo yahay oo muuqata oo jira ilaa iyo intii kolley anigu aan soo galay bahda waxbarashada
oon arkaya iskuulaadka mushkiladda noocaasa waa mushkilad jirta bay ahayd in ardada ay ku liitaan qaabka tacbiirka siday hadalkooda u muujin lahaayeen inay ku liitaan hadday noqoto qoraal iyo hadday noqoto maarata taxriiri labadaba ama shafawi ay noqoto marka dhibaatadaas waxaan isleeyahay waxa keenaya waa wax asaaska ka soo bilaabanaya asaaskan waxaan dhihi lahaa ardaygu markuu fasalka koowaad noqdo ayaa waxaa lagu bilaabaa wax loo yaqaano tarjama lagu bilaabaa macnaa kelmadii oo carabi ah ayaa luqa soomaaliya loogu macnaynaya waxaana wanaagsan in laga dhaafo tarjamada oo ardayga la baro qaabka u hadli lahaa oo macalinku isku dayo markuu ardayga yar yahay waa xilliga uu takayufka iyo la qabsiga wanaagsan uu samayn karo waa marka uu yar yahay fasalka koowaad markuu yahay labaad yahay saddexaad yahay afraad yahay haddii macallimiintu ay asaaska xilliga lagu bilaabi lahaa in macallimiintu ay kula hadlaan ardayga carabiga oo la baro oo sidaa macallin maadada markuu soo galo uu maarata kula hadlo luqada carabiga kula hadlo oo yidhaha fasalka xisadan markaan ku jirno waa xisadii luqada carabiga waxaan luqada carabiga kuma hadlayno waxaan isleeyahay ardadu yaraan bay kula qabsan lahaayeen waana u fududaan lahayd inay wax tacbiiriyaan laakiinse maalintii uu ardaygu fasalka koowaad soo galo ayaa waxaa lagu bilaabaa in wax loo tarjameeyo oo xarafkan waxaasaa loola jeedaa kan waxaasaa loola jeedaa la yidhahdo tarjamadana dadku wax laguma barto luqadu waxay u baahan tahay takhaadub iyo qofku inuu taxadus la yimaado iyo mubaarasa inuu la yimaado inuu ku hadlo ayay luqadu u baahan tahay luqo walba oo la baranayana kama maarmi karto mahaaradaa la yidhaahdo mahaaratu taxadus wa takhaadub kama maarmi karto luqo kasta way u baahan tahay marka dhibka u weyn heesta ardada waxa weeye waa inaysan ku hadlan markay dugsiga sare soo gaaraana ayagoo waxay soo gaarayaan sidaasoo kale ku tacawuday inay maaragtay oo caado ka dhigtay oo dabeecad u noqotay in loo tarjamayo annaga waxaan isku daynay inaan xalinno markay ardada dugsiga sare noogu soo gaareen oo aan diidno inaan maarata ardada kula hadalno maarata luqada soomaaliga ama ugu tarjumno luqada soomaaliga waxaan isku daynay marar badan inaan anagu dhahno casharka waxaan ku sharxaynaa maaratay luqa carabiga cashar ku saxno waa tijaabinay oo waa samaynay laakiin waxaan ka weynay ardayda wax falgala inay nala tajaawubaan oo nala falgalaan oo nala mushaarakeeyaan waxaa u mahaysaa qof walba inuu diidan yahay inuu ku dhagaysto qof walba inuu leeyahay haddii la yidhaha war hadal ma hadlayo anugu luqada carabiga ma aqaan iyo wax noocaasa marka dalabkii ardada ka imaanayay waa la waayey marka waxaan isleeyahay haddii ay yaraan kula soo qabsan lahaayeen markay weynaadaan hadday la yimaadaan dhib uma arkeen laakiinse wixii ay la yaraantii ay soo barteen oo tarjamada ahaa ayay markay weynaadaan doonayaan waad mahadsantahay sheekh cabdiqani dabcan intaas aad macalinka luqadda carabiga ahayd maadooyinka aad dhigaysay naxwaha ka mid ahayd naxwuhu horta qofku inuu naxwaha barto ma ka qayb qaataa inuu luqadda carabiga barto mase qofku isagoo naxwaha aqoon buu carabiga baran karaa qofka markay noqoto ku hadal waxaa jira dad badan oo luqada carabiga bartay oo maalan ba ka bartay dhagaysi ku bartay ama daawasho ku bartay telefisyoon ay ka daawada maqal iyo muuqaal ku bartay oo luqada carabiga ugu hadla si dalaaqa ah si aysan ugu hadli karin dadka maarata naxwaha iyo waxaa bartay si aysan ugu hadli karin ugu bartay marka luqada carabiga luqo kastaana saas waxay u baahan tahay istimaaca iyo hadalku kuma xira naxwo kuma xira laakiin markii qofku uu doonayo inuu luqada gudaheeda sii galo oo qawaacideeda uu barto oo uu tadriisiyo ayuu waxa laga maarmaan noqonaysa in la barto qofkii uu barto qawaacidii luqadu ay leedahay ama naxwo ahaan ama sarf ahaan ama balaaqa ahaan ama wixii kale oo la mid ah marka in la barto waa laga maarmaan laakiin markii loo baahan yahay luqadu sideeda waxa la yiraahdaa luqadu waa tafaahum dadku waa inay isku fahmaan waxa la rabaa qofku luqadan markuu ku hadlayo waa inuu qofka kala fahmi karaa marka luqadaas tafaahumkaahi hadal qofku inuu hadli karay u baahan tahay oo waxa qalbigiisa ku jira uu muujin karo uma baahna in maaragtay ardaygaanu qawaacid yaqaano qawaacid inuu yaqaano hadda waxaan garanaynaa dhalinyaro yaryar oo telefisyoonada daawaday oo wax badan fiirsaday oo ayagoo yaryaroo weli xataa aan iskuulaadkiiba la geynin luqada carabiga si dalaaqa u bartay ayaan garanayna marka iskuma xirra barashada luqada carabiga oo si wanaagsan loogu hadlo iyo naxwaha loogu harto ardada noocaasa oo luqada carabiga saytaa ugu hadlaya wax garaamar ma khaldaya naxwo ah ma khaldayaan markay ku hadlayaan mana aysa baran laakiin waxay barteen qaabkii loogu hadlaya ayay barteen marka wax isku xiran maaha labadaas aad baad u mahadsan tahay sheekh cabdiqani intaanan gabagabada qaybtan koowaad tegin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marmarka qaar oo aad macallin noo ahayd
waxaad dhigaysay maadooyin ardayda qaybtooda anigu aan ka mid ahay u kala fog tusaale مثلا روضة الأنوار وأنا حيسة لها iyo tadbiiqu sarfi ama naxwal waadix oo aniga kulay aniga ahaantayda aan habi ku ahayn kalaaskiisa oo aan sida aan kuwa kale u lahayo aan u lahayn 16 sano in macallin la ahaado wax sahlan maaha sidee marmarka qaar isugu keenaysay adiguna waxa ka dareemayay inay isugu kamid yihiin labada kalaas marka ku jirtid sidee marka hal qof oo isugu arintaas oo kale maxay ku sameynaysaa adiga sidee isugu wadeen waa sax waxa hubaal ardada markay horta adigu anagu waxaan takhasus ahaan mar hadaad tarbiyadiina taqaano qawaacidi naxwiga iyo luqada carabiga taqaano adigu ardayga tajaawubkiisu wax weyn oo saameyn kuma reebayo sababtoo ah waxa arkaysaa hal fasal oo aad 10 waasiinayso ayaa waxa arkaysaa qof inuu maada xiiseynayo Soomaa marka adiga mid kasta waxa la rabaa inaad la falgasho mid walba wuxuu xiiseynayo adna aad la xiisiso u muujiso maadada uu xiiseynayo inay tahay maado muhiim ah qofka midna hada siirada xiiseynaya waa maado diintii maartay ku tacalluqda oo diinta islaamka la xiriirta oo siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam la xiriirta waa arin aad iyo aad u wanaagsan waa muyulkiisu ardaygu uu tilmaamaya inuu ka meel gaarana waa wax dhici karta waa maado si gaar ah loogu takhasusi karo Soomaa marka ardaygii in lagu dhiirigeliyo oo la jeclaysiiyo ayadana waa laga maarmaan kii dhinacan kale muyul u lena asagana sidoo kale in loo la tajaawubo oo loo sheego maadada iyaduna maado wanaagsan ay tahay luqadii asaas u tahay inuu bartaa la wanaagsan tahay uu ku kala sooci karo shayga saxiixa iyo shayga khaldan ee luqada carabiga i'raabta iyo wixii kalimaadku ay lahaayeen uu ku muujin karo saxda iyo khaladku ay u kala muuqan karaan marka labada dhinacba macallinka wax dhib kuma hayso waad mahadsantahay Sheekh Cabdiqani dhowr iyo 10 sano waxaad khadiib ka ahayd jimcaha ka khudbeeya masaajidka saxaaba ee Garowe dadkiina khudbada ah masaajidada ka khudbeeya maalmaha jimcada ah dadka qaybtood waa la idin dhaliilaa waxa la yiraahdaa toobiyadii la rabay ama ciwaanadii la rabay in dadka looga hadlo oo lagala hadlo maalmaha jimcaha ma keentaan miiska maxay idin la tahay dadka keentaan waaqica oo garoonka bulshadeena ka hadashaan ka sax noqotee ilaa iyo maalinta aan imid masaajidan qadiibka ah masaajid Raxmaan ku bilaaway ibn Abbas baan ka qadiibka ahaan jiray masaajidada kale oo masaajid aan ka khudbeen waa yar yahay hase yeeshee hadalka aad leedahay macnaha khadiibku qofka horta shakhsiyadiisa ku xiran tahay khadiibkana waana jiraan mawaadiic asaasi ah oo marka xaaladda taagan taabanaya oo khudbadu ay mararka qaarkood sidii la rabay uga hadlaan ama ay uga hadlaan si macnaha guud oo shaamil ah sababtoo ah waxa mowduuca mararka mawaadiicda mararka qaar waxa dhici karta inay dajo iyo buuq kale ay kiciyaan si daraadeed masaajidada dadka mas'uulka ka ah masaajidada dad baa mas'uulka ah ma jecla mawaadiicda taabanaysa ama sabab noqon karta xoogaa inay buuq keento oo maamulka iyo bulshada iyo wuxuu qolo dad iska hor yimaadaan oo maarta uu ka dhasho maarta mashaakil ay ka dhalato sida daraadeed waxa mar walba ku dadaalaa xataa haddii aan wax saxayno Soomaa inaan si asluubaysan oo wanaagsan aan u saxno anagoo haddana mowduuci aan si toos u deynaynin inaan si guud u ishaaro anagoo hebel baasaa yeelay iyo qof hebel baasaa yeelay inta badan waxaan iska ilaalinaa marka aan rabno inaan mowduuc mucaalajeyno mowduucna uu bulshada taabanayo oo yahay marka mowduuc taagan inaanan cid farta ku fiiqin laakiinse aan mowduuca aan rabno inaan mucaalajeyno oo ka hadalno aan si guud asaga u taabano sidaa daraaddeed hadhowdii qofku qolo ay tiraahdo annagaa noola jeedeen ama saas arrintu ahayd waa jawaabta horta alla wixii waa duuban yihiin ama waa la arki karaa waxa weeye meeshaa magaciina ku sheegnay meesha aynu ku taabanay oon kaga hadlay hala sheego sidaa daraaddeed mawaadiicda noocaas oo kale ah qof in lagu ataago ay dhici karto waa laga ilaaliyaa khudbadaha qolinku masaajidkuna ma jecla si aan aysan maartay dhibaato ugu saameyn aysan ugu reebin annaga la tukanuna saasaan maartay aanan si guud inaan uga hadalna maahane aan hoos ugu sii daadegin mararka qaarkood waad mahadsantahay Sheekh Cabdiqani dabcan waalidna waa tahay iyo macallin khibrad dheer u leh waxbarashada maxaad kula talin lahayd maanta waxa la leeyahay waxbarashadii Soomaaliya oo dhan gaar ahaan Puntland
أول شيء يصير مركي عاد بلابي يصير على النمط أرضي ذا دوكسي كسر وين دد وين بحبرني أما حتى واحد لا أركي كلي دوكسي قد الحين يكون عند دد وين ما أنت قلبة كذا بيسوي كسير يريهن أرضي دوكسي كسر سوق جاريسا أو إلا فنفورك إيمانيسا والدين تينا سوشيال ميديا صوب حي آلة ما ركت إلكترونية أيا علمه إنترنت أيا أشره وحاس أو دن dadkii mushkilad baa ka haysata ilmihiina adduun xiran kuma jiro oo waxaanu la falgalaya sport baa la daawanaya waxyaabahaas oo dhan baa ku xiran maxay tahay waxa aad kula talin lahayd maanta waalid khibradda Sheekh Cabdiqani oo muddadaas fog oo waxbarashada ah sugaya iyo ardaygii labada qoloba waxaan rabnaa inaad bal waalidiinta Soomaaliyeed dhammaantood waxay juhdi ku bixiyaan oo dadaal fara badan ku bixiyaan si ilmahoodu wax u baran lahaayeen waalid walba wuxuu ku dadaalayaa ilmihiisu inuu asaagi ka harin oo asaagiina aysan wax baran asaguna uusan waxbarasho aan noqon waalidiinta ayagoo duruufo adag ku jira xaalada dhaqaale oo aad u hooseeya ku jira waxay ku dadaalaan iyadoo aysan jirin haddana dawlad ka fargaraynaysa oo daboolaysa baahidii waxbarashada ee ardaydu ay u baahnaayeen oo qarashaadkii maarta bixinaysa iyadoo aysan jirin ayaa haddana waalidiintu waxay dhabarka u riteen iyadoo duruufaha iyo xaaladaha adag lagu jiro oo wax walba leh inay ayagu maarta hawsha daboolaan marka waalidiinta horta waa u duceeyna waxaan leenahay waalidiinta khayr fara badan Ilaahay ha siiyo ajar fara badan Ilaahay ha ka siiyo aad iyo aad bay ugu dadaaleen ilmahooda inay wax tarbiyayaan gaar ahaan markaan u soo laabano mandiqadeenan Puntland waalidiinta dhammaantood meel kasta oo la joogaba juhdi iyo dadaal bay ku bixiyaan ilmaha waxbarashadoodii laas waxaan kula talinayaa waalidiinta waxbarashada oo loo dira kaliya cunuga muhiimadeeda ma aha waalidiintu inay la socdaan ilmahooda oo waxbarashada markay aadaan goobta ay wax ka baranayaan ay la socdaan waalidiin badan baa waxa dhici karta cunuga inuu usbuuc dhan inuu iskuulka tagay iyo inuu istagay aan ka warqabin ilaa in iskuulka lagala soo hadlo oo la yiraahdo cunugaagii intaasoo maalmood ma hayna maane si kale aan ku ogaanayn waalidiinta iyadoo ay mashquulku iska badan yahay inay ilmahooda la socdaan sababtoo xilli adag baa lagu jiraa xilli waxa lagu jiraa ilmihii wax badan ay maartay hadda sidaa sheegtay socialka maartay waxa la yiraahdo tawaasul ijtimaaciga ama social media oo ardadii wareeriyeen bulshadiina ay maartay rasul fikri baa maartay ku soo duulaan baa lagu hayaa ana gaaladu duulaan ay nagu soo qaadeen oo aad u badan wuxuu aad u saameeyay dhalinyaradeena yaryar kuwa dhexe intaba aad u saameeyay macnaha waxa la oran karaa boqolkiiba 80 waa ku guuleysteen gaaladii rasul fikriga soo qaadeen sababtoo ah dhalinyaradii markii waxaan la soo saaray wax alla wixii kale oo soo haray oo ama waxbarashada ah mid diini haday tahay iyo mid maadi haday tahay inta waa ka soo jeesteen waxa lagu mashquulay kubadaas mar la daawanayo mar la ciyaarayo mar laga maartay mar laga sheekeynayo marka qaar waxa dhigi kartaan waxa ilaada ardada dhalinyarada qaar kamid ah ayaaba waxay u nooliyeen kubadaas ay u nooliyeen sababta waqtigoodii dhamaa waxa daa waqtigaaga dhan ku dhamayso waxa noqonaysa asaga inuu nooshay marka waalidiinta waxaan leenahay ilmaha in la socdo ayaa aad iyo aad u wanaagsan ina ka warqabto marka iskuulka jirana ka warqabto hadduu iskuulka soo baxana cunuga in la mashquuliyo oo waxbarasho kale iyo meel kale ama macaahid diiniya lagu mashquuliyo oo habeenka uu fursad helin haddii habeenka uu fursad suuqiisa iska galo maalinta xoogaa intuu gelinka hore iskuul aado waxa weeye saaxiibo xun uu raaco marka waalidiinta waxa muhiim u ah inay horta aad ula socdaan cunugaagu yuu la saaxiibiyo hadaa gabadhaan iyo la saaxiibta hadduu wiil yahay wiilkan yuu la saaxiibiyo ilmaha waxa aad u fasaadiya waxyaabaha ugu weyn oo fasaadiya waa saaxiibka xun wey saaxiibka xun waana waxa uu nabigu nooga digay sallallahu alayhi wasallam oo leeyahay qofka almar'u ma'a man yukhalil qofku waxa uu noqdaa qofku la saaxiibo hadduu qof wanaagsan la saaxiibo qof wanaagsan buu noqonayaa haddii maartay qof xun la saaxiibana qof xun buu noqonayaa marka bulshada waalidiinta waxa leenahay war ilmihiina ka warqaba oo la socda oo ciday raacayaan iyo ciday la saaxiibayaan aad uga warqaba si ay maartay akhlaaqdooda u hagaagto kulana dadaala inay dad wanaagsan raacaan kuna dadaala waalidiinay ina ilmaha mashquulku inay waxbarasho ku mashquulsan yihiin ilmahan waqtigooda waa ilmo yaryar waqti fara badan bay haystaan
waxyaabo badan baa ku furan si hadda sheegaynay haddaan la mashquulin waxaasay ku mashquulayaan marka in ama shaqo iyo hawl lagu mashquuliyo ama waxbarasho lagu mashquuliyaa waa aad iyo aad bay muhiim u tahay ardada waxaan leenahay waxaan waa waxbarashadiina lagula dagaalamayo waxay idiin faa'iideynayaan maarta aad ku mashquusheen waa wax inay waqtiga kaa lumiyaan keliya loogu talagalay waa wax ay gaalo ka dambayso uguna talagaleen dadka dhalinyarada muslimiinta inay waqtigooda iyo waxbarashadooda ay ku lumiyaan danahoodiina waa ka gaareen iska dhaafa oo ka hara oo dantiina aqoonsada waxaa dantooda kugu jirtaa inaad wax barataan oo bari aad mustaqbal yeelataan oo waalidiintiina aad anfacdaan oo naftiina anfacdaan oo wadanka aad anfacdaan baa dantooda kugu jirtaa ma ogtahay macmil in akoonka sayfin akoon oo ka mid ah akoomada salaam banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta 4 gees sayfin akoon waa koonto dhigaal ah oo macmiilku ku keedsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bangiga oo kaliya ku keedso lacagahaaga koontada dhigaal ee bangiga salaam